بسم الله الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. كلنكeenan caawa waxaan insha Allah taala kaga hadlaynaa wixii Ilaahay naga waafajiyana ka dhihi doonaa mowduucii hore loo ilaamiyay dhaantada iyo dhibaatooyinkeeda diineed. munaasabada keentay waxa way kulli wada garanaysaan waa arintaas oo waayahan dambe aadna u faaftay mujtamaca dhexdiisana yar iyo weynba dad badan ay aad u xiiseeyaan mukhalafaad fara badan iyo khaladaad sharci oo badan ay ku jirto isla markaana dadka qaarkood iska fududaysteen oo ay moodeen waxayna shariicadu waxba ka qabin oo iska banaan oo dhaqamadii hidiyaha dhaqanka oo horay loo sameyn jiray haddana aan dhib lahayn. arrintaas waxay keentay inaan baraarujino si dadka cidii galaysana ay u gasho iyadoo og waxay kala kulmayso Ilaahay agtiisa, cidii ka fogaanaysana ay ka fogaato iska ilaaliso. intaana galin qodobada noocaas waxaan ka hormarinayaa bal horta taariikh ahaan dhaantadu xagee ka soo jeedaa inaan wax yar ka yiraahdo iyo say ku gaadhay hadda meesha ay gaadhay. dhaantadu waxay ka mid tahay codka laga maqlayaa meesha dhexe codka hagaajiya. dhaantadu waxay ka mid tahay ciyaaraha taqliidiga ah muxuu ahaayay gobolada Soomaalidu degto qayb ka mid ah laga ciyaari jiray alcab shacbiya la yiraahdaa dhaqan ahaan soo jiri jiray waqti ay soo bilowdeen iyo cid bilowday ma naqaano lama garan karo laakiin iyadoo uu la ciyaarayo la arkay dhaqamo kale iyo ciyaaro kale oo noocaas Soomaalidu ay leedahay waa jirta oo la mid ah sida mesela saarka oo kale iyo shiribka iyo deegaan walba wuxuu leeyahay ciyaaro nooca buu leeyahay oo taqliidi oo la dhaxlay. asalkeedu waxay ahayd intaan aniga garanayo xilliyada barwaaqada ah oo dadka baadiyuhu intay isu yimaadaan isu soo dhawaadaan oo meel soo wada degaan ayay dhalinyaradu habeenkii bixi jireen. waa marka habeenkii xooluhu soo xaroodaan oo la kala seexdo ayay dhalinyaradu bixi jireen. markaasaa banaan koroo meesha guryaha ka yara durugsan ayay isugu tagi jireen. halkaasaa marka lagu dhaanteyn jiray. habeenimo la dhaanteyn jiray maalinimo ma ahayn. xilli dambana way u badnaan jirtay. culimada iyo dadka akhyaarta ee bulshada markay ka war helaan ama qaylada maqlaan iyo sawaxanka intay baxaan bay kala eri jireen. dadkaasina dadna dhaga nugul bay ahaayeen oo marka lagu soo baxo oo culimada iyo akhyaarta iyo ku soo baxaan rag iyo dumar waa la kala carari jiray. marka asal ahaan xusuustayda horta sidaas ay ahayd. waxaa kaloo dheeraa asalkeedii hore bilowgeedii hore midhaha la isticmaalayo iyo mowduuca laga hadlayo iyo waxay ku saabsanaan jirtay iyo waxa hadda ay ku saabsan tahay ama ay ka hadasho isma laha. waaga hore waxay ahaan jirtay dhaantada iyo hadallada iyo macnaha ay wataan iyo wax laga hadlayo ama waxay ahaan jireen faan in la isu faano ama waxay ahaan jireen maalan in ammaan iyo qabiil iyo deegaamo iyo waxaas ay ku saabsanaan jirtay ama waxay ahaan jirtay in la ismaago oo wiilka iyo gabadha isu qabiyo inay ismaagaan
laakiin waxa ka fogaan jiray waxa la yiraahdo ghazalka waxa la yiraahdo jacaylka iyo cishqiga iyo waan ku jeclahay iyo waan ku haraaday iyo wadnahay balbalaya iyo waxaan hadda ay daldalaan ma jirin waaga dadku way xishood badnaayeen yaani ma diin badnaayeen oo aqoon diineed oo badan maysan lahayn oo waxa laga yaabaa intooda badan ba inayna tukanin laakiin waxa raasikh ku ahaa xishoodkii waa marka dhintay waxa marka soo galay madmuunkii laga hadli jiray ee ciyaarta asal ahaan laga hadli jiray dhaantada waa la bedelay waxa loo bedelay waxaynu arki doonaa insha Allah taala wax kamid tilmaami doona asal ahaan marka saas iska ahayd ciyaarun iska taqliidiya khaladaadkeeda haba wadato gadaal dambe marka waxa caan bixiyay meelihii ay ku koobnaan jirtay maxaa ka soo saaray maxaa caalami ka dhigay waa su'aasha isweydiin leh waxa kale jira ciyaaro kale oo ay leeyihiin deegaamada kale leeyihiin tan maxaa meesha gaarsiiyay ma kuwa kale ka fiican tahay waxbay la dheertahay markaan dib ugu noqono taariikhdan waa nool lahay inaga nool oo ma garanaynaa waxa heerka gaarsiiyay wuxuu ahaa Ethiopia ciidamada Ethiopia markii ay qabsadeen nimankan Tigreeg oo Ingista ay ka saareen wadanka oo ay Tigreedu qabsadeen deegaamadii dawladii hore Ethiopia ay ka jirin jirto dhan bay damceen inay qabsadaan kadib deegaamadan Soomaalidu jabhada kacay oo ka hortagay oo dalka inay xoreeyaan oo ka xoreeyaan Ethiopia u istaagay jabhadahaasi waxyaalaha ay isticmaaleen waxa kamid aha qaar kamid ah si dhalinyarada iyo dumarka iyo ay barnaamijkooda uga dhaadhiciyaan oo ugu soo jiitaan ayay dhaantada isticmaaleen tiimam iyo dhaanto iyo dadkan muxuu ahay deegaanka daga si ay barnaamijkooda u geliyaan meeshaasi waxooga qaabkii hore ahaan jirtay baasha way ka yar baxday waxay yara qaadatay jid kale iyo qaab kale yara qaadatay jabhada qaatay way yara caalimooday waxa dhacday dagaalkii jabhadaha iyo ka dhaxeeyay ciidamada Ethiopia markay muddo socdeen Ethiopia waxay dawladeedu qaadatay dawlad goboleedyada kililada intay ciidan u dhisto ciidanka isaga inay qabtaan hawsha ku saabsan la dagaalanka jabhadaha ciidanka federaalkuna inuu iska nasto meeshii gurmad looga baahdo inuu gurmado oo taageero waatan marka kililada loo sameeyay mid walba muxuu ahay ciidamo u khaas kan Soomaalida loo sameeyay liib booliska waxay dhahan waxay noqotay marka dagaalkii inuu isu rogo jabhadihii meesha ka dagaalamayay iyo wiilashii isla deegaanka u dhashay oo magac liib booliska wata inuu dagaalku muddo dheer dhex socdo dawladii meesha ka jirtay marka dawladii kililka ahayd ee jigjiga ka talinaysa ninkii jiray oo madaxweynaha ka ahaa Cabdi Maxamuud Cabdi Ilay caanku ah ayaa waxay marka qaadatay ciyaartan ay jabhadu ku caanamaashay oo ay dhalinyaradii iyo dadkii ku kaxaysatay intuu kala soo wareego inuu asagu ka dhigo mid uu iyaga ku garaaco oo dhalinyaradii iyo wiilashii iyo gabdhihii iyo dhaanta wax inta loo sameeyo telefishinka laga baahiyo tartamo loo sameeyo ciyaarta in laga la soo wareego ficlan sidii baa dhacday ciyaartii isagii baa la soo wareegay wax kasto awood dawladdu ay lahayd oo dhan buu marka galiyay halkaas marka waxa timid markii hore cala mustawa jabhad bay ku joogtay markii dambana waxay noqotay cala mustawa barnaamij dawladii ay tabanido dhaqaalaheedii iyo qalabkeedii warbaahinta iyo awoodeedii iyo ay isugu geyso inay dhaantada banaanka u soo saarto oo ay ka dhigto muxuu ahay barnaamij ay yani dawladdu wadato oo ay fangareynayso isla dhanka kale waxa iyadana ka jirtay in dawladdaasi maadaama dulmigeedu badnaa oo dadka
ama dulmiga ku jira ama nidaam xumada ama musuqmaasuqa ama dhibaatooyinkeeda si ay u qariso in dadweynaha loo jeediyo wax la yiraahdo lagu maaweeliyo ciyaar wax la yiraahdo dawladahuna dhaqankoodu sidaas waay markay dawladdu faashil tahay ama daalimad tahay ama aynan cadaalad haynin ama musuqmaasuq ku salaysan tahay si shacabka ay isaga jeediso inta badan shucuubta waxa lagu maaweeliyaa waxyaalaha ciyaaraha marka qayb ay ka ahayd ujeedadeeda sidaasay marka ku caanbaxday dhaantadu markii hore way xadidnay laakiin markii dambe way caanbaxday markii dambe waxay noqotay in loo sameeyo tartamo waaweyn oo abaalgudyo waaweyn lagu bixiyo 2014 waagii aan mari jiray kililka maray oo Soomaaliland uga gudbay hadana Puntland uga gudbay 3 bilood safartii aan ku mari jiray ayaa waaga waxaan maray iyadoo ay socoto wax la yiraahdo tartanka dhaantada mid kamid ah waxaan isugu nimid magaalada la yiraahdo Fiiq 3 habeen baan joogay markaan magaalada tagay ayaa waxa magaalada soo galay tiimamkii tartansiinayay dhaantada rag baaba ku takhasusay baashay u kala fiican tahay iyo qawaaniinka lagu tartansiiyay iyo dhalinyaro yaryar ciyaal yaryar oo ubaxo kacaya ayaa marka la tartansiinaya dhaantadii lagu tartansiinaya meesha anaga masaajidkan muxaadaro ku haynay meel weyn baa loo ooday dadkii oo dhan baa bulshadii baa isugu timid waa la daawanayaa xagamkii iyo galsooriyaashii baa halka fadhiya jawaa'iz waaweyn iyo abaalgudyo waaweyn bay dawladdu u diyaarisay dhaantada cidda ku soo baxda in la siiyo marka baasho halkaas ay soo martay siyaasad baa gashay waxay ahayd markii hore ciyaar iska taqliidiyo hidiya dhaqan iska ahayd oo iska koobnayd laakiin markii dambe waa la siyaasadeeyay siyaasad baa marka soo gaarsiisay heerka hadda aad aragteen markii dambana waxoogaa qaabkeeda markii laga yeeray helay Soomaaliya oo dhan baa wada qaadatay xawar baa muxuu ahay xawar baa dirgax laga hayaa oo Hargeysa dirgax leynayso muxuu ahay meesha Nairobi iyo Garissa baa dirgaxda lagu hayaa oo baashi tagtay حتى ololayaasha doorashada arkaysa ololihii doorashada ee caadiga loo gali jiray dirgaxdaas ka socota marka waxay noqotay hawl culus oo u baahan in umada loo muujiyo ruuxani muxuu yahay xagee ka yimid muxuu xambaarsan yahay waxa laga yaabaa dad fara badan oo ku ibtilaysan heesaha oo kale inaysaas oo kale ana u dhageysan oo ilayeen heesu waa xaraan oo heesii hadad ka tagteen tani maxay kaga duwan tahay ma tan waa hidiya dhaqan waa ciyaar iska dhaqan waa marka waxoogaa in la dul istaago la cadeeyo waa laga maarmaan intaasi waa hordhac yar oo ku saabsan xagee ka tiimsayso ku timid ujeedadan kale ee muxaadaradu waxa weeye kelimadu macdiratan ila rabbikum in ilaahi tabaaraka wa tacaala maalinta qiyaamada waxaan iyo munkarkan maxaa wax looga dhihi waayay عذردار إن إلهي تسكهله طلباتنا وحوي ولعلهم يتقون إنه ضدك قاركو إلهي كو أنفعنا والصورة قل تصدحاتنا وحوي الشيء هذه سيدي سبب لقى آموسو وإنتو بالشدة كفا فالله آموسو مركز دموحو النقضاء عادة أذك وللي يردنا كو بربارتو وضياشنا كو دقوبان حدونا أي نقطو عادة لقوية عادة الله إليه ويهال كامرتو منكرات كمركا لغا امسو شرعي بين نقدان وبالشده اكتيده waxay ka noqdaan cid ka hada shay diida marka dambiile noqoto heerka marka intaysan gaarin munkaraadka ama hal la qaato ama yaan la qaadanin laakiin waxa laga maarmaanaa in bulshada lagu baraarujiyo mar walba lagu celceliyo laga hadlo hatta hadaan la qaadanin waa in dadka lagu baraarujiyo waa in la ogaado inay munkar tahay in khaladaad ku jiraan inay diinta ka soo horjeedo يعني وحوي سيسن وحي شرعي ونقل وكي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه وكيلها كيف أنتم إذا لبستكم فتنة حالكي إنه سينقون دونا مركي إذن قبسطوا فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير كي دأد هانا وكنت قوبو كي دأد ياري دلين رضا هانا وكبر بارو ويتخذها الناس سنة dadkuna ay ka dhigtaan caada ay ka dhigtaan فإذا غيرت قالوا غيرت السنة
haddii markaa la bedelo cidi ka hadasho dadku waxay leeyihiin sunnadii iyo caadadii iyo dhaqankii baa la bedelay markaasaa waxaa lagu yidhi oo abu cabdiraxmaanow taasi goormay dhici doontaa wuxuu yidhi idaa kahurat quraa'ukum waqallat fuqahaa'ukum wakahurat umaraa'ukum waqallat umanaa'ukum waltumisat اddunyaa bicamali اlaakhira arrintaasi waxay dhici doontaa marka dadkiina wax akhriya ay bataan inta wax akhrin karta way badan tahay waqallat fuqahaa'ukum dadkiina fuqahada ah ee fahamka saxda ah leh ay yaraadaan wakahurat umaraa'ukum madaxdiinnuna ay bataan waqallat umanaa'ukum dadkiina aaminka ana ay yaraadaan waltumisat اddunyaa bicamali اlaakhira camalkii aakhira lagu raadsan jirayna oo ilaahay ajri iyo janno lagaga raadsan jirayna adduunyo lagu doono kuraasteeda iyo xoolaheeda iyo magaceeda xadiidkaasi culimmadu waxay leeyihiin daahirkiisu waa mawquuf calaa cabdillaahi bn mascuud laakiin waxay leeyihiin xukmu rafci buu leeyahayo waxyaalahan mustaqbalka imaan doona waxyi unbaa lagu sheegi karaaye wuxuu isagu jeebkiisa ka keensan kara ma aha marka waxaan ujeeddada ka wadaa sunno iyo caado bulshadu ku dhagto oy u aragto xalaal bannaan ciddii ka hadashana la qoonsaday noqoto ayay noqdaan munkaraadku haddii laga aamuso marka waa in laga hadlo oo la inkiro oo dadka laga waaniyo oo muxuu laga wacyigeliyo waaye qaadashadu ilaahay bay la jirtaa ciddii qaadanaysa inta haddaan ka soo gudubno aan mawduuca u soo gudubno lubbigiisa dhantadu waxaa ku jira wax ka badan 20 dhibaato ama 20 mukhaalafo oo shariicada khilaafsan wax ka badan baa ku jira si kooban haddaan u dulmar waxaa ka mid ah almacaazif وآلات اللهو موسيقى iyo kamanka loo garaacayo waa xaraan waana bidcooyinka lagu soo kordhiyay dhaantada shay walba soo bidca ma laha waa bidcooyinka dhaantada dhaantadii hore asalka ahayd ee hidaha ahayd ma lahaan jirin wax la yiraahdo muusig ma lahaan jirin muusiguna meeshuu galaba waa xaraam nabigeena sallallahu alayhi wasallam ayaa cadeeyay xadiidka fi sahih al-bukhari abu malik al-ash'ari abu amir wuxuu leeyahay nabigu sallallahu alayhi wasallam la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif ummadayda waxa ka mid noqon doona dad xalaalaysan doona zinada iyo xariirta iyo khamrada iyo macaazifta waa aalaatu lahwi sida culimadu isku waafaqsan yihiin aalaatu lahwi waxa weeyaan waxyaalaha la garaaco muxuu ahaay muusiga iyo wixii la mid ah oo marka la ciyaarayo la garaaco waxa la yiraahdaa macaazif dad banaysta ayaa imaan doona nabiga sallallahu alayhi wasallam dad banaysta imaan doona macnaheedu maxay tahay macna waa xaraan waay dad baasi aakhiru zamaanka banaysan doona wuxuu nabigu intaa ku daray sallallahu alayhi wasallam wala yanzilanna aqwamun ila janbi alam dad baa waxay degi doonaan buur dhinaceeda yaruuxu alayhim bisarihatin lahu xoolahooda u soo dheelmanaya markaas waxa uu iimaanaya ruux faqiir oo baahan markaas waxay leeyihiin irji ilayna gadan irino soo laabay leeyihiin fayubayituhum allah ilaahi ba tabaaraka wa taala habeennimada cadaabkiisa iyo halaag ku keenay wala baabiinaya wayad'u al-alama buurti agtooda ahayna wala burburin wayamsahu akharina qiradatan wa khanazira ila yawm al-qiyamah qayb iyaga kamidana ama kuwa kalena alla wuxuu u bedelayaa daanyeero iyo doofaaro ayuu ilaahi ka dhigaya xadiidka bukhari waxa soo saaray ibn hibban iyo tabarani waana xadiis saxiixa waxa riwaayaadka xadiis kale waxa jirta badan oo macnaha tilmaamaysa oo iyaguna ka hadlaya aalaadkan la tumo muusiga iyo wixii la mid ah xadiista qaar kamid ah waxay tilmaamayaan sababta keentay in la bedelo oo dadka iyaga doofaaro iyo loo bedelo daanyeero sababtu inay tahay dumarka heesa
ama dhaanteeya ama muxuu ahaayey ku luqeeya yani waxa weeye waxaan la yidhaahdo waxa baabkaa ku yimaado biitikhaadihim alqaynaat wa shurbihim alkhamr yani waxa weeye khamrada cabitaankeeda iyo dumarka noocaasa samaysigooda buu nabigu sal alay wasalam xadiid kalaa jira anas ibnu malik oo isaguna macnaha tilmaamay nabigu leeyahay sal alay wasalam sawtaani malcuunaani fi dunya wal-aakhira laba dhawaq adduunya aakhiraba waa lacnadan yihiin mizmaarun cinda nicma wa rannatun cinda musiiba durbaan la garaaco markii barwaaqo la haysto waa ciyaaraha iyo muxuu ahay durbaanada iyo muusiga marka la ladan yaho barwaaqada iyo nabadda la haysto la garaaco warannatun cinda musiiba iyo dhawaqa iyo qaylada iyo baroorta markay musiibadu dhacdo labadaas sawdba waa malcuunaan buu nabigu sal alay wasalam xadiidka bazaari keyrkii baa soo saaray lafdi kaluu ku yimid ama wuxuu ku yimid riwaayo kaloo xaakim iyo bayhaqi ibnu shayba soo saareen oo nabigu leeyahay sal alay wasalam waxaa layga reebay oohinta iyo baroorta oohinta caadiga laygama reebin markay musiibadu dhacdo inuu ruuxu ilmeeyo laakiin waxaa layga reebay nabigu sal alay wasalam can sawtayni axmaqayni faajirayn laba dhawaq oo doqoma ah oo faajir labaduba faajir yihiin oo dariiqa ka baxsan yihiin oo khaldan yihiin sawtun cinda nicma markaad barwaaqaysan tahay dhawaaqa oo muxuu yahay lahw iyo lacib wa mazaamiiru shaytaan durbaanka shaytaanka oo muusiga ah iyo ciyaarta xilligaa la sameeyo barwaaqada waxaa la sameeyaa inta badan markay barwaaqa jirto laanna asalkeedii saasuu ahaa markii ay jir abaaro iyo dhibaatooyin ay jiraan dadku way kala cararaan laakiin markay barwaaqa timaadaan la isla soo degaan la isu yimaadaa markaasaa la dhaantayn jiray haddana dad ciyaara haddaad aragto waa maray barwaaqaysan yihiin waa mar la ladan yahay la nicmaysan yahay nabad lagu dhaanteeyo la hayo nabad lagu heesa la hayo muusiga la ciyaaro laakiin markay nicmadu meesha ka baxdo musiiba timaada kala carar baa ka dhici soo maaha nicmadii ilaahay la rabay in laga shukriyo ayaa shukrigeedii waxaa lagu bedelay dhawaqan iyo qayladan malcuunka nabigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh marka wuxuu tilmaamayaa xadiistaa ku sheegaya muusigu meeluu galaba inuu xaaraan yahay culimada badankoodna sidaasay qabaan oo ay ka mid yihiin afarta a'immada ah asxaabulmadaahibka imaam abu xaniifa maalik shaafici axmed ibnu xambal iyo keyrkoodba muusigu meeluu galaba waa xaaraan ayib taa waa mid oo waa dhibka koowaad ee ciyaarta ku jira oo ah muusiga la socdo dhibaatada labaad ama yani shayga labaad ee xaaraanta ah waa isjijabinta iyo iswaraariga iyo wiilasha iyo gabdhuhu ay samaynayaan raggana looma ogola dumarkana looma ogola hadday dumar tahayna ka wasii daran xataa waxa ay ku dhawaaqayaan dadku hadduu yahay wax macno ahaan saxsan yahay laakiin isjijabinta jidhkoo la jijabiyo iyo jidhkoo la laalaabo iyo muxuu ahay daaniska waxa la yidhaahdo jidhkoo la ruxo si ahaantiisu xaaraan u yahay waxaa jiray xadiid bayhaqi iyo bukhaari bayhaqina soo saaray bukhaarina adab mufradka ku keenay bisanadin xasan caaisha radia allahu tacaala canhumaa gabdho ay eeddo u tahay ayaa la guday markii la guday baa waxoogaa way yaro xanuunsadeen marka caaisha waxaa lagu yidhi yaa umma almu'miniin alaa nadcuu lahunna man yulhiihinna maan ugu yeedhno cid gabdhaha waxoogaa maaweelisa si waxoogaa xanuunkan haye iyo waxoogaa waqtiga loo dhaafiyo markaasay tihi bala ugu yeedha bay tihi waxoogaa cid maaweelisaba haddii loo heli karo waa gabdho yaryar oo markaa la guday waa fa arsalat ilaa fulaan almuqani nin waxaa jira marka heesi jirayoo durbaan iyo waaga lama tubi jirin laakiin midhuhuu tirin jiray waa ku sawdayn jiray waa ku codayn jiray bilmunaasaba haddii yani hadalka la tirinayahay ee nadmiga ee tixda hadduusan ka muusig la soconin
macnihiisuna uusan macna xaraam ahayn sawdaynta lagu sawdeeyo codaynta lagu codeeyaa dhimala markaa يعني وحوي الشعر كنبي مركو كهلي قبيقة وحلا وحي النظمي أولا نبي يقول صلى الله عليه وسلم وهذا الأوكلا وهي كيسة وناكسين معنى وناكسن حنبارسن وناكسين هاي كمعناها حن حنبارسن وحن يهي النبي صلى الله عليه وسلم وسيد هذا الكعادي وكلا وهي مركا وحوي نيم بالله يري ضدكي قاعد يشري كم ذا ويجي من مركا نينكي قبله يري رئيسه ما ويلني أيا عائشة صومرتي markaas waxay aragtay isaga oo sawdayntii iyo codayntii ku daraya madaxa ruuxaya madaxa saako hay madaxiisuna uu timo badnaan jiray nin timo badan oo timuhu raaracaan waa marka madaxu ruuxaya timihiina waa la ruuxmayaan gabdhihii yar yaraana uu ma weelinay Aisha soo martay markaas waxay ku tiri uffin shaytaanun akhrijuhu bayt uff baa la yidhi bayt waa shaytaan bixiya bayt hawshii loo keenay gabdhaha yarka inuu ma weelay Soomaaliya muxuu ku daray ya isruuxid iyo madax ruuxid iyo hawlo kale uu keenay Soomaaliya Aisha waxay tiri waa shaytaan kan meesha ka saaran marka raqsiga iyo isruuxidu si ahaantiisa markii ciyaar noqoto si ahaantiisa ayuusan u fiicnayn waa mukhalafad dhan sideeda marka mid labaad weeye dadku markay ajnabi kale yihiin oo wiilal iyo gabdha ay yihiin oo haddana ay isruuxahayaan mafaatintii jidkooda ayaa isu muuqanayo bitaali waxay noqonaysaa wasiilo kamid ah wasaaisha fitnada iyo aafada iyo dhibaatada faafiso kamid noqonayo dhibaatooyinka ku jira waxa kamila ihtimaaluha ala kashf al-awraat gaar ahaan dumarka iyo hablaha dhaantada tumayay way qaawan yihiin dhar waxay qabaan loo bixiyay waa dharkii hidaha dharka hidaha waa dharkay Soomaalidu xiran jirtay ama dhar yariha ugu wacnaato oo waga dharba lama haysaninba raguna qeyd iyo go'bay qabeen go' tunka la saartay qeyd hoosta laga xidho gabdhuhuna intaas haba dhar u ah ama tabartiya dhar yariha u geeyso ama dhaqanka diineed oo iska yaraaba ha u geeyo oo gabdhuhu jirkoodu waa iska qaqawanaa qaybahan koriyo waa iska qawanaa intay asturi jireen waa intan muxuu ahay naasaha iyo intan hoosii bay asturi jireen laakiin gacmooda iska qawanaa luqunta iska qawan marka timaha way iska qawanayeen marka dhaqankii nooca iyo labiskii nooca ah baa loo hiloobay waxa la yiri hidiye dhaqan baynu lahaan jirnay gabdhihi dumarka loo xiriyo hidiye dhaqankii war hidiye dhaqan jaahiliya dib aan ugu celinine diin baa timidoo dadku diintoodii bay garteen oo xijaab bay qaateen oo amarka Ilaahay bay qaateen inaad jaahiliyad dib ugu celisaan inaad jaahiliyad dib ugu celisaan oo hidiye dhaqan aabayaashin iyo ayeeyooyinkii baa lahaan jiray oo aday lahaan jireen way qaldanaayeen maxaa naga noogay waaba laga soo tago dhar baa la helay adduunku wax isu furmay waxaas dadka waxa looga dhigayaa marka wax khatar ah oo halis ah oo muxuu ahay lagu ma weelinay culimadu waxay isku waafaqsan yihiin nusuusta quraanka iyo sunnadana laga qaadan haweenta muslimadda amarba haday qaan gaadho awradeedu waa jirkeedo dhan waxa laga muransan yahay wax weeyaan wajiga iyo labada kaf ma banayn kartaa mise ma banayn karto shirka intiisa kale inay awra tahay oo inay asturta ay laazim tahay quraankuna wuu ku tusay sunnaduna way ku tustay culimaduna isku waafaqsan yihiin marka laga hadlayo awratul mara saas daraadeed baa fiqigi shaafiiciga ya wahabiya kanta sidan u dhigay fiqigi shaafiiciga ay wadaadadu inoo akhrin jireen wuxuu ahaa guriyaheena yaal meesha ugu horeysa safiinaha iyo shujaaca halkaas ay ka soo bilaabaan awratul mar'ati jamii'u badaniha illa alwajh wal kaffayn soo saasma dumarka awradoodu waa jirkoo dhan wajiga iyo kafaynka mooye soo saa kuma ol ya keenay marka war wadaadadii cusbaaba dumarkii mara saaray bay kulay warma Ilaahay baa halka dhigay awrada oo la baneeyo gaar ahaan dumarka awradooda la baneeyo
fitne ka weyn oo bulshada ku timaadaay ma jirto fitanka ugu weyn oo bulshooyinka qabsada waa in cawraadka la baneeyo shaytaanal aabaheen iyo hooyadeen xawaa iyo aabaheen aadam alayhi salaam markii uu geedka cunsiiyey wixii ugu horeeyay uu rabay inuu ka gaadho waxay ahayd inuu cawradooda baneeyo ilaahay quraanku inoo sheegay fawaswasa lahum ash-shaytaanu liyubdiya lahumā mā wuriya canhumā min saw'ātihimā shaytaan baa waswaasiya xaawiya aadam si uu wixii qarsoonaa iyo cawradoodii u muujiyo saas daraadeed baa rabbigan tabaaraka wa tacaala inoo digo wuxuu yidhi yaa banii aadama laa yaftinannakum ash-shaytaanu kamaa akhraja abawaykum min aljannati yanzicu canhumaa libaasahumaa liyuriyahumaa saw'aatihimaa war caruurtii aadam iyo xaawa dhaleenow shaytaan yuusan idin fitnaynin dharka yuusan idinka dhigin sidii aabihiin iyo hooyadiin intuu dharka uga dhigay jannadana uu ka soo saaray idinkana yuusan idin yeelin islaaliya ilaahay baa inoo digay tabaaraka wa tacaala ujeedada ugu weyn marka ibliis uu leeyahay waxa weeye inuu dumarka dharka ka dhigo ragga qaawiyo dadkii marka waxa weeyaan dhalinyaradii iyo dadkii isku fitneeyo tii iyadahayd baa marka lagu dhacay dabinkiisa lagu dhacay gabadha muslimadda ah inay asturan tahay quraanka ilaahay inoogu sheegay yaa ayuha nabiy qul li azwaajika wa banaatika wa nisaa'il mu'miniina yudnina 'alayhinna min jalaabibihin dhalika adna an yu'rafna fala yu'dayn dumarka mu'minaadka ah nabiga lagu yiri sallallahu alayhi wasallam xaasaskaaga gabdhahaaga iyo dumarka kale mu'minaadka ah mu'miniinta dumarkooda u sheeg marada isku sidaaya jilbaabka waa marada weyn ee ka koreysa maryaha kale taasaa u dhow in la garto oo aan la dhibin waa dumarkii lagu yiri walaa yubdiina ziinatahunna illa ma dhahara minha cawradooda iyo quruxdooda yeyna muujinin illa wixii iska muuqda mooyee dumarkii ilaahay ku yiri way dumarkaas waa dumarkii alla ku yiri walaa tabarrajna tabarruj al-jaahiliyyati al-uulaa jaahiliyadii hore ee diin la'aanta ahaa dumarkoodu siday quruxdooda u muujin jireen oo kale jirkiina quruxdiisa ha muujinina astura dumarkii ilaahay ku yiri way dumarkaad arkaysaane ragga hor taagan ee isruxaya ee qaqaawan dumarka aan jirkooda asturin oo amarka ilaahay jabiyay oo amarkii rasuulka jabiyay oo bulshada fitnadii inay fitneeyaan daayirtay dhalinyarada dharka u dhigtay kuwaasi jannada ilaahay geli maayaan حتى هذه صلاة يصون عبادات كل إنسان نبي وحول نوشيغي انت أي سميين إنه كفلنتها إنه جنة وقادان في صحيح مسلم وحاكو سوغان من حديث أبي هريرة النبي يقول صلى الله عليه وسلم لبا قيبوض بن آدم ككمد وأهل النار منع أركينه ولي ميسن إيمان بن صلى الله عليه وسلم ييهن قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ضدوة أولوة oo saynta loodo kala dadka ku garaac qolada labaadna waxa way wanisaa'un kaasiyatun aariyatun mumilatun ma'ilat dumar maryaqaba hadana qaawan ayaguna leexsan dadkana leexiya ama jidkooda qayba kamid ay leexleexinaya ru'usuhunna ka'asnimati al-bukht al-ma'ila madaxooda siday muxuu ahay wax u galgaliyeen oo u weyneeyeen oo waxaad moodaabu nabi sallallahu alayhi wasallam u ogyihiin sida hasha kuruska weyn ee kuruskeedu leexsan yahay oo kale yaani umaamado iyo maryo iyo karimo iyo waxbay madaxa gelinayaan markaas ay madaxa tuurayaan waa style-kii hore ee dumarkii intaan muxuu ahay xogaa baraarugan diinada u san dhicin dumarka Soomaalida qaar kamid qaabka saa u labisan jiray haddana habraha waaweyn qaar baasaas kuwa inta badan Yurub iyo ka yimaadeen aan diinba gelinba oo meelaha yimid arki tuur weyn oo madaxeedaba ka weyn baad moodi oo saaran badarki kaasnimati al-bukht al-ma'ila way nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam sida hasha kurus kale ee kuruskeedu leexsan yahay oo kale iyo madaxoodu u yaala nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam la yadkhuluna al-jannata dumarkaasi jannada gali maayaan wala yajidna riihaha عرفت جنتنا هلي مايان وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا
urka jannadana iyo carafteedana waxaa laga helaa marka loo jiro socdaal inta iyo inta meel fog markaad u soo jirto ayaa saxan saxada iyo carafta jannadu dadku ay helaan kuwaas inay janno galaan iska badaaya xataa carafteeda heli maayaan u soo dhawaan maayaan way macnaha yeeyihiin dumarka dharka xidhan ee haddana qaawan culimadu waxay leeyihiin dhar aan jirkeeda wada gaadhaynin bay qabtaa jirkii qaar baa bannaan wayna labisan tahay wayna qaawan tahay ama ma ahe maryaha ay qabto jirkeeda ma asturayaane waa khafiif oo jirkii baa ka muuqda wax mara magac leh magac maradiisa labay qabtaa haddana jirkii waa qaawan yahay dumarkaasi nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam wali mayna imaanin waysa imaan doonaan jannada geli maayaan buuro carafteedana heli maayaan gabadhan marka qaawanay dhaantaynaysa ee isruxruxaysa ee aafaysan ee la lugooyay hadday sidaa ku dhimatay aysan toobad keenin soo halis ma xadiidka nabiga xagee ka mari marka isqaawinta iyo cawradoo la banneeyo ragga ajaanibta khaasatan hortooda waa kabiira min kabaa'ir dunuub dambiyada waaweyn bay ka mid tahay mukhalafaadka iyo dhibaatooyinka shariicada khilaafsan ee dhaantada ku jirayna kow ka tahay waxaa ka mid ah dhibaatooyinka ku jira shariicada khilaafsan al-ikhtilaat bayna al-jinsayn ragga iyo dumarka isku dhex jira shariicadeenu waa shariicad dahaaro waa shariicad nadaafadeed waxay doonaysaa mujtamac nadiifa iyo guryo nadiifa iyo rag iyo dumar nadiifa dad daahiray iyo mujtamac daahiro nadiifay iyo bulshada iyo diintu dhistaa si tahaarada loo ilaaliyo ayaa waxa la kala fogeeyay rag iyo dumarka xataa goobaha cibaadada oo loogu baahi badan yahay ayaa la kala fogeeyay ciidoo kale marka la isu soo baxo nabigu sallallahu alayhi wasallam dumarka gadaal bay fadhiisan jireen meelayna xataa nabiga khudbada uu jeedinaya ayna ka maqlaynin garaysa xadiidka saxiixeenka ku yimid nabigu sallallahu alayhi wasallam markii ciidda la tukado ragga u khudbeeyay dumarku khudbadii maysan maqleen xaggay joogaan markaasuu nabigu sallallahu alayhi wasallam intuu timid buu iyagiina khudba kale u jeediyay meesha ugu tagay masaajidka kale markay dumarku ku tukanayaan waa kii nabigu sallallahu alayhi wasallam gadaal mariyay ee waliba hadana yiri ragga markay isla tukanayaan ragga iyo dumarku safka ragga waxa ugu khayr badan ka u horeeya safka dumarkana waxa ugu khayr badan ka u dambeeya waa goormo waa markay wada tukanayaan maxaa loo yiri laana safkooda u dambeeya raggii buu ka fogyahay ragga u horeey safkooda u horeeyana dumarkii buu ka fogyahay labada jinsi markastoy kala fogaadaan waxa ku jirta dhowrsoonaanta iyo nadaafada iyo tahaarada bulshada ku jirta haddii ay isdhex galaan oo istiraxaan oo xawaajista iyo kala ilaashanaantu meesha ka baxdo waa meesha marka fasaadku ka bilowdo waana mid shariicadu ka degayso markuu nabigu leeyahay sallallahu alayhi wasallam ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijal min an-nisaa hadith sahihanki ku yimi hadith Usama ibn Zayd nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam gadaashay kama tagin fitno ragga uga daran dumarka buu nabigu sallallahu alayhi wasallam fitno xoolo kursi yani wax kasto ragga ku yimaado fitna fitnada ugu darani waa fitnada dumarka kaga timaada buu nabigu sallallahu alayhi wasallam waxa kale xadiidka Abi Sa'id al-Khudri nabigu sallallahu alayhi wasallam fattaqu ad-dunya wattaqu an-nisaa ad-dunya iska jira dumarna iska jira fa inna awwala fitnati bani Israa'ila kanat fi an-nisaa fitnadii ugu horeyso reer bani Israa'il ku dhacday dumarkay ka bilaabatay buu nabigu sallallahu alayhi wasallam hadii marka dumarkii la asturi waayo oo la xijaabi waayo oo la ilaalin waayo oo iyagiyo dhalinyaradii raggii la kala ilaalin waayo aafa halkaas ay ka bilaabataa fidna ka weyna ma jirto saasuu nabigu tilmaamaya sallallahu alayhi wasallam sidaas daraadeed wiilashan iyo dhalinyaradan isku dhex jira ee isku qasan ee hadana qaaqaawayin dumarkii ee muxuu ahay leysdhex mulaaxayo waa mukhalafa sharciyo waa wax shariicada aad uga soo horjeeda dad muslima oo ilaahay rumaysan oo rasuulkiisa rumaysan oo quraanka rumaysanna wax ay yani wax weeye ku dhiiradaan waa wixii la iska ilaalin lahaa xadiidka dambana muslim baa soo saaray
waxaa ka mid ah dhibaatooyinka ku jira dhaantada oo shareecada ay ku khilaafsan tahay ikhdaacu alqowl min annisaa hadalka dabacsan ee dumarka hadalka asal ahaan dumarka ay ragga la hadlayaan ama danahooda ku gudanayaan asal ahaan sida saxiixa ah hadalka dumarku cawra maaha inay adeegato ragga la hadasho oo danaheeda qabsato oo dukaanka ka adeegato isbitaalka ka adeegato hadasho oo hadalkeeda la maqlaay asal ahaan cawra maaha cala saxiix laakiin hadalka inay jijabiso oo jilciso oo dabciso oo uu noqdo hadal fitna abuuraya ama fitna sabab u noqon karaya ama shahwada kicinaya bil ijmaac hadalka noocaas waa xaraam hadalkaas marka waa hadal fitna abuuraya waa hadal qariisadii iyo dareenkii kicinaya markaasoo kale marka waa marka ilaahay leeyahay tabaaraka wa tacaala falaa takhdacna bilqowl fayatmaca alladii fii qalbihi marad hadalka ha dabcinina oo haddaad dabcisaan midkii qalbiga ka jiranaa buu damac galayaa ya adiga waraabo gaajaysan haddaad hilib ku hor wado muxuu samaynaa soo haliili maayo nin qalbigaba ka jiran oo sakaraad ah haddaad intaad adiguna hadalka jajabisa aad waan ku jeclahayey naf baa i haysaay waa ku baadigoobahyey xageed gashayey layaa sariir kula seexdaay maantana aad ku hayso aadna gabadh tahay jidhkaaguna qaawaye soo fidna maaha falaa takhdacna bilqowl allah hadalkaa wuxuu u jeedinayaa xaasaskii nebi maxamed sal alla alay wasalam ma cid ka dahaaro badan baa jirta ma cid ka ilaashanayd baa jirta waa dumarkii nebi maxamed sal alla alay wasalam ummahaatuna waa ayuu alla ku leeyahay falaa takhdacna bilqowli hadalka ha dabcinina fayatmaca alladii fii qalbihi marad ninka qalbiga ka jiranee shahwadu ku jirtaa markaa damac galaya soomaalit waqulna qowlan macruufa hadal wanaagsan ku hadla oo aan jajabin iyo jilcin iyo dacsanaan lahayn marka iyadana waa xaaraam bal dhaantadu maba asaxdaba haddaan gabadh ku luuqaysa la helin weligiin miyaad aragtay in dhaanto ay rag keliya isu tumahayaan waxaan hadda dhaantada loo yaqaano ma jirto waa in gabadh luuqayso oo u jawaabto oo muxuu ahay ka daba qaado oo la helo waay oo hadalka iyada lafteedu muxuu ahay soo jiidata ragga soo jiidata in la helo waay saasayba ku arkaanu sixatiha bay ka mid tahay si kaleba ku asixmayso sidaas daraaddeed muxaramaadka ay xambaarsan tahay bay ku jirtaa waxaa ka mid a muxaramaadkay dhaantadu xambaarsan tahay akhlaaqdii iyo qiyamkii bulshada ayay baabi'inaysaa gaar ahaan akhlaaqda way sii kala muhiimsantahay iyadoo wada muhiimsan nabigeennana sal alla alay wasallam loo soo saaray inuu akhlaaqda dhammaystiro haddana way sii kala muhiimsan tahay kuwa ugu muhiimsan waxaa ka mid a xishoodka inuu ruuxu ilaahayna ka xishoodo addoommadana ka xishoodo qiyamka bulshadu ay leedahay waay bulsha markay akhlaaqda weydo oo xishoodka weydo oo tahaarada weydo bulshadaasi waa ku dhammaatay inama alumamu alakhlaaqu maa baqiyat ummadii intay jirto waa uun akhlaaq khaasatan bulshada muslimka markay akhlaaqdu lunto bulshadaasi ma istaahisho inay sii jirto waa inay baaba'do waay sunno ilaahay waay gaar ahaan waxaan nidhi khuluqulxayaa oo nabigeenu sal alla alay wasalam uu ku tilmaamay alxayaau min aliimaan xadiid culimada qaarkood duruqdiisa bimajmuuci turuqii ay ku taxsiininayaanna wuxuu nabigu leeyahay likulli diinin khuluq wa khuluqu hada diin alxayaa yani diin walba akhlaaq bay leedahay akhlaaqda islaamka iyo diinta islaamkuna waa xishoodka xadiidka abu mascuudin albadrina waa kii ah fi saxiixi albukhaari nabigu yidhi ina mima adraka annaasu min kalaami alnubuwati aluulaa idaa lam tastaxyi fasnac maa shiita hadallada murtida ah ee nebinimadii hore ama nubuwadii hore laga soo gaadhay waxaa ka mid a haddaadan xishoonaynin waxaa doonta samee sariigtii xishoodku hadduu ruuxa ka dhammaado rag iyo dumarba wax walba ka fila way marka wax haba yaraatee ka reebtoon ma jiro marka xishood darradaasi iyo akhlaaqdaa dhimanaysaay waxay ku imaanaysaa
faaxishadan ay ku dhawaaqayaan iyo rag iyo dumarkan isku dhex jira iyo qaabkan ka hawsha loo wado khuluqi akhlaaqdi iyo dhaqan wanaagii iyo hidihii fiicnaa ee bulshadu lahayd ayaa la baabi'inaya ama meesha ku baaba'aysa waxa kamida dhibaatooyinka ay dhaantadu xambaarsan tahay aljahru bis-suu wa i'laan al-munkaraat xumaantii oo lala banaan baxay iyo wixii shariicadu khilaafsanayd oo يعني وحويان أمام الملأ دتك هرتيسا الله سمينا يولا جلي الله القرآن الكريم كوحو كله هي لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم حمانتو يدن بيدو مركي قرصويهين وحي دبان أو كليتا روح سمينية لكن دنبيك مركي بنانك الله صودكتو أو بنانك الله صوبحو أو ورباهنتي صوقلو تلفزيونadii social media dadka dhaxooda ku faafo oo la wada daawado oo la arko markuu saa u faafo kale bulshada ku imtixaanan markaas ruuxii sameeyay kaliya ku ekaan maaye dibku markaasi dadka waa wada gaaraya sidaas daraadeed baa nabiga wuxuu leeyahay kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin ummadaydo dhan waa afis mu'afa waa إلا كوا الدنبية ذا موجست مويه يعني وحوي يدو الدنبي أي وضعته هذا الدنبي إن أسترطاء أو سقر سعودية كوسما يساوي ويكفضوا التهاي تنوحي لا لرتهاي وحلي استهتارك يعني وحويان سريك الآن إن هذا وحبه أبي يلمبا ويكدر انتهاي مر ويكدر انتهاي حيالها لا يابك لو حكم إذا سوق كردي هذا السوق مالي بوحبي كوكرديان مالي بوحبي كوصودران مالي بقاب بالوقدرها مدبم كدم بيساك سيدران فحشي يحمان تكم موقتي لقن حمده يوحى كالسعودي هذه يابيس مركا واجي هوري وحابد أركي شريبة محوها هاي وحن لي هذول markana ay hidiyaha dhaqanka dhaanay u xirxiraan gabdhaha dhaantaynay madaxana way u duubi jireen luqunta iyo gacmaha ay iska bambanaadeen iyo intan iyo marka qaar hadda waxayba keeneenba ilaahay amarkii gabdho timuhu u tidcan yihiin oo timuhu baqaawayn waxay ka wadaan mutaqana dumarkii hore oo dhaantayn jiray qaar baa timuhu isaga tidcanaan jiray oo iska banaanaan jiray marka waa gabadh muslimada oo timihi iyo luqunti iyo wixii la asula iyo dhul jidku meesha ugu quruxsanaa oo dhan intay rag loo soo istaagtay waatantir shawaka waa baqaawanahay marka maalinba waxba la soo wadaa maalinka dambana ila waxa la doonayaa waxan kadaata in loo yeelo soo jiidasho loo yeelo in la suugeeyaa la doonayaa oo maalinba maraq cusub iyo yani wax way muxuu ahay milix cusub iyo hawl cusub loo yeelo wixii hore waa laga xiisa dhici shaydaankii baa marka maalinba tilaabo la sii qaadahay maalinba meel buu sii wadaa maalinba qayb buu ugu sii daray waxa kamida dhibaatooyinkeeda waxa kamida idaacatul waqti luminta iyo juhdiga iyo waqtiga lumaya ama han noqoto diyaarinta waxa la qaadayo diyaarintiis waqti buu qaataa kooxdan isla tumaysa in la isu soo ururiyo ishelaan waqti bay qaadataa in lagu tababarto qaabka wax loo jilahayo in la diyaariyo tiimamkaasi in la ishelaan oo ruuxu muhiimadiisa la siiyo waqti bay qaadataa fulintu waqti bay qaadataa jamaahiirta iyo dadweynaha mutaabacaynayay waqti bay qaadataa inta waqti ka lumaya waxaas oo waqti ah haddii inta la ururiyo wax nafci la gelin lahaa ummadda wax badan buu tari lahaa ya beeruu soo saari lahaa wadamuu hormari lahaa ummad buu wax bari lahaa wax weyn baa ka imaan lahaa waqtiga meesha ummadda kaga lumay ka daawanaya iyo ka sameynaya ka diyaarinaya kulli waqtiga ku luminaya waqtiguna sidiisaba waa bini aadamku waa waqti waa ummadda kale waxay kaga fiican tahay sidee waqtigeeda uga faa'iideysato ummadba waxay ka liidataa oo ka dambaysaa sida ay ummadda kale waxay kaga liidataa luminta waqtigeeda ay ku lumiso waxyaalaha aan nafciga iyo faa'iidada lahayn waxa kamida dhibaatooyinkaasi ay leedahay da'yartii iyo dhalinyaradii wiilashii dumarba waxbaran rag iyo dumarba waxbaran lahaa ee mustaqbal dhisla iyaguna mustaqbal yeelan lahaa
dadka iyo dalka iyo diintana mustaqbalkeeda wax badan ku biirin lahaa ayaa waxa looga dhigayaa dayasho iyo wax inay raadiyaan oo ay iyaga laftoodu noqdaan oo kale sidaas oo kale noqdaan wax himilo ah oo daayartii lagu barbaariyo ku daydaan gaar ahaan markii dhalinyarada iyo daayartu ay arkaan wiil iska dhalinyaro ama gabadh iska dhalinyaro meelaha taagtaagneed oo iska rafaadsanayd oo cilmi meel geeya iyo aqoon meel geysa iyo dadnimo kale meel uu ku gaadho waayay oo maalmo gudahood ama sanad gudihii noqday najmi xidig xidig gogol cagaaran loo fidiyo oo garoomada lagu soo dhaweeyo oo xafladaha iyo maharajaanaadka loogu yeedho oo xoolo kasba oo magac yeesha oo la yiraahdo hebel dhaanta la dhahay hebel dhaanto miskiin meelaha taagtaagan buu ugu had aqoonu meel ku gaadhana ma lahayn kartigu meel ku gaadhana ma lahayn dadnimo kale meel ku gaadhana ma lahayn laakiin waxaanu intuu waxoogaa muxuu ahay ku caanbaxay iyo waxoogaa dhaqaalaana ka sameeyey magacna ka sameeyey waa la bartay waka madaxdii iyo dawladihii baa muxuu ahay goosha u fidinaya dadkii dhalinyaradii markay arkaan yaryarka ahaa dhalinyaradii yaryarka ahaa ee soo korayay markay waxa soo kala arkaan ma waxaad ku karaysaa adiga wax weey 12 sano tacliin garaac oo ilaa secondary ka bax 4 sano jaamacad garaac 3 sano master garaac 4 sano dambana PhD garaac miyaad ku kari oo sheekh intaas oo maxaa raadinaya soo xoolo ma oo waxoogaa dhaanta amaan garaac oo hal sano ku taajiro ku leh xoogaa anigu midhaha haddaan isku hagaajiyo waan keeni karaaye gabdhana meelaha waan ka urursan karaa intaan dhaantada galo haddana waxaan aan raadinaya jidka dheer u marayaba sanadii 2 sanaaba lagu helaaye maxaaba jidka dheer i marinay wataan hadda idin sheegahayo markaan marayay kilka aan magaalooyinka marayay ciyaalkii yaryara ee la rabay inay madrasooyinka iyo iskuulada iyo goobaha tacliinta iyo inay wax bartaan ayaa waxa lagu ababiyay dhaantada ku tartama waxay gaari doonaan xageysa dhaanta dad gaarsiinaysa afaway marka dad badan oo daayartii ah ayaa ku lunsan oo meesha isle wax ka gaadha muhiimadii ay ahayd in muxuu ahaayay ay nafciga ku keenaan iyo jidkii saxsanaana kaga lumay waxa kamida oo waxyaalaha shariicadu ay diiday oo dhaantadu ay xambaarsan tahay waxa kamida zina ku jirta zinadu waa noocyo zinada inaga waxaan u naqaanaa labada xubin ee taranka oo isgala Soma laakiin shariicadu waxay u taqaanaa zinada taa zina waa la yiraahdaa zinooyin kalena way jiraan zinooyin kale say ku yimaadaan nabigeenu sallallahu alayhi wasallam xadiis sahih muslim ku yaana min xadiis abi hurayra rasuulku wuxuu sallallahu alayhi wasallam kutiba ala ibn adam nasiibuhu min az-zina ibn adam ka waxa korkiisa lagu qoray qaybta uu zinada ku leeyahay mudrikun dalika la mahala waana ku dhacaya laga maarmaan markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam fal aynani zinahum an-nadar labada indhood zinadoodu waa fiirada iyo daawashada wal udunani zinahum al-istima' labada dhagoodna zinadoodu waa dhageysiga wal lisanu zinahu al-kalam arabkana zinadiisu waa hadalka wal yadu zinaha al-batshu gacantana zinadeedu waa taabashada iyo qabashada wal rijlu zinaha al-khuta lugtana zinadeedu waa socodka wal qalbu yahwa wa yatamanna qalbiguna wuu dooni oo wuu jeclaan ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه intaasi markay isbiirsadaan oo hawsha soo qabtaan xubinkii odayga ahaa hawshan qaban jiray oo xubinka taranka ah ayaa marka ama rumayn oo fulin ama uu diidiyo uu beeninaya maxaa ka hormaray marka soo zinooyin badan kama hormarin ishii baa ka hormartay gacantii baa ka hormartay afkii carabkii baa ka hormaray waxa ka hormaray lugtii oo loo socday waxa soo dhan qalbigii baa ka hormaro isaga laftiisa hawshii jeclaaday oo doonay
intaas markay zino soo dhacdo tii weyneed markaas ay iimaanaysa Soomaali marka wiilashan dhalinyarada iyo gabdhaha isla dhaantaynaya soo isma daawanayaan mise indhaha qabanayaan indhaha isku qabanayaan way isdaawanayaan way istaabanayaan way isu soo lugayeen waa dhalinyaro oo qalbigooda waxba ku jira shaki ma laha Sooma annaga dhihi mayno zinadii weyneyd bay galeen oo ruux muslima inaad tiraahdo zinawdii weyneyd buu galay ma sahlana cadaynkeen baa lagu dhihi baada arkaya afar markhaati oo rag ah oo hawshu markay dhacaysay waan malaawaal ahayn oo waan la isdul saarnaa ahayn oo waxba dhaqdhaqaaqay aan ahayn oo labadii xubin baa si dhab isugu jiraan arkay ah afar saw markhaati kacda keen haddii afartii la waayo saddex kaliya haddii la helo xataa afar haddii mid la waayo saddex la helo saddexdiina waa leedin karbaashi 80 jeedal baa leedin ku dhufanaa cirdiga iyo sharafka ruuxa muuminka sida loo ilaaliyo taa macnaheedu waxa weeye gabadhu way qaawan tahay ama yaani dhaantay ku dhex jirtaa ama meel heesay ku jirtaa ama jirkeedu ma asturna macnaheedu ma aha zinadii weyneyd bay gashay ma aha ruuxii qaabkaasi u yiraahdana waxa weeye waa dambi weyn waa qadaf laakiin tan ka hadlayna waxa weeye intan ka horeysay muuqata ayay shariicadu waxay ku tilmaantay inay iyaguna zina tahay intan ka horeysay shariicadu sheegtay ayay shariicadu waxay ku sheegtay inay tahay zina waana dunuub kulligeed waay waana ta quraanku qayb kamida tilmaamay waay marka ilaahay uu lahaa tabaaraka wa tacaala wala taqrabu zina zinada ha u dhawaanina ha sameynina lama dhihin soo farq uma dhaxeeyo ha u dhawaanina macnaheedu maxay tahay ishi laaba وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن غض البصر تابشدي الرقي الدمر كأجانب تكلا خلوذي إسلقوني نقشدا سمارت وحاسو دنبا لسودي دي وحاسو دنبحيتا وحين داب شيء وزيندي سيسان أدعين بالإلالينيا لا تقربوا هودا واننا معنا ساسوي وحن كينا هي أردن كفوق هذا وحن كينا يوردن وأكون مركا حديثك هذا الشيء يوم مركا وحكم إذا وحيالها أي حنبار سنة وحكم إذا الدياثة وذهاب الغيرة تيوثنمو إيو قيردي يفعل الذي وأمد كلمته روح مسلم كأه وإنه ليه فعل ليه وإنه كفعل الله حمانتا إهل كيسا قبله كيسا حاسس كيسا ولاليه قبلها مسلمات كحتا وإنه كحنون صدو هدي فعل لدى اللواهي أو حمانتا إهل كسامين يرالي لغا نقض أما أين دبك وهي نمبا نبي وحو كتل ما بين يتاهي النوع ديوث نماء واهي ديوث نماء اللغة العربية الديوث هي الديوث كصومالي دو كالدوين صومالي دو الديوث وحي وتقانا وحي وتقانا كوان دبضي استقدتك صوما ديوث كاسان رحنا صوما مركز الديوث كاس حديث كوكاه الله كاما ديوث في اللغة العربية وحلي لهذا نبي قاقي حي وانينك إهل كيسي ريل كيسا حمان ترالي قوقا أو حبك قبين قبله زي الدمر كيسي ولا ليه الدمر كإهل كوحي إنه يسميها حمان تسميها أما الرقوي ما دانوا إسكالا باشالان حبك ما قبو نين كاسو نبي كنت لما ديوث نبيه صلوات ربي والسلام عليه بحال دونيا إنه روحه غير ليه محارمته إنه كغيره إهل كيسي إنه غيره ومد الدمر قوديا قبله إنه حمان تكلا غيره تاسال الدنيا حديث أبي هريرة واكيها سعد بن عبادة وكورنا يوحر يا رسول الله سعد بعدها يا رسول الله لو وجدت مع أهلي رجلا لم أمسه حتى آتيه بأربعة شهداء رسولك إلهي وهدان حاسك نين أقو إبادو نين كاتهابا ما يميا إلى أفر مرخاتي أن كانوا ما أفر مرخاتي بان رادية يوضو إسلامتي إذا لقى شقي سنة يويل وأفر مرخاتي الرادي بهذه هذا مركزوا النبي يقول صلى الله عليه وسلم نعم ها أفر مقاتل هذه مركزوا يقول كلا والذي بعثك بالحق
إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك ما يبي رسولك إلهي بان كل نارتي سيف بان كل دق لها بول ولي بالسيف تدي نعدل عقومة رفتانه وأكو كلا شر لها بول حيث مرخاتي الرادي فرير كي يجيب أبو لقول حجراي ورجع رسولك صلى الله عليه وسلم اسمعوا إلى ما يقول سيدكم وقاس كينو هذا الكوليه دقيست من النبي صلى الله عليه وسلم إنه لغيور وأنا المصير بدن وقير بدن وأنا أغير منه السجن أنا كقير بدن والله أغير مني أنا إلهي بقى غير بدن سمعت يعني وحوي بالشد وإني غير لهذا غير معنى وحوي وإني كفع الله توي كم صيرته حمانتا قبلها iyo dumarka iyo muxuu ahay eheladoodu ay galayaan waa inay ka xumaato kadibna waxay ka qaban karto waa inay ka qabato way macna xadiidku waa muttafaq calayhi laakiin lafdiga hadda aan akhrinay muslim baa iskale xadiidka kale nabigu wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wasallam saddex jannada ma galan waligood ilaahayna ma fiiriyo maalinta qiyaamada alcaaqu liwalidayhi ruuxa labadiisa waa alcaaqa ku ah والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال haweenayda ragga isu ekaysiisa ee ragga isku shabahda iyo wadayuuth iyo ninka dayuuthka waxa dayuuthku yaa waay rasuulka ilaahay riwaaya kale nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam la yubali alladhi la yubali man dakhala ala ahlihi wa ninkan dan kala hayn ehelkiisa cidda u soo galaysa gabdhihiisa iyo carruurtiisa iyo dumarkiisa riwaaya kale waxay ahayd alladhi yuqirru fi ahlihi alkhabath ama khubtha xumaanta intuu ehelkiisa ku arka gabdhihiisa iyo ninka sidaaba isaga daayo dan kala hayn kaas weeyaan nabiga sallallahu alayhi wasallam marka gabdhahaas aad arkaysaan wiilashu ay ciyaarta ka tumanayaan waxa jooga walaalahood baa jooga aabayaashood baa jooga adeeradood baa jooga xigtadoodii baa joogta bal waxa laga yaabaa inay meesha fadhiyaan oo iyaga laftooda ayba ku qoslayaan ama ay daawanayaan meelaha ka daawanayaan warwaati qaraabada inay heblaadahay war inay heblaada soo inaad ka xubaato ma ahayn bulshada markay sida ku marto waxani ay sida marka ula qabsadaan bulshada waxa ka dhimanaysa marka qiiradii baa ka dhimanaysa Soomaalidu waxay yiraahdaan doofaar baa maxay loo cadaabay doofaar baa ficil la'aan loo cadaabay dhahan Soomaalidu ficiladu marna way fiican tahay oo marka shariicada waafaqsan tahay maxaarimta lagu ilaalinayo marna way khaldan tahay oo marka shariicada khilaafsan tahay نعم gabagabadii baan joognaa waxa kamida dhibaatooyinka ay keento ciyaarahan dhaantada iyo heesaha iyo yaani wax weeyaan munkaraadkan banaanka loola soo baxo dhibaatooyinka ay keenaan waxa kamida bulshada ku faafa masaa'ibto inay bulshada ku dhacdo gaar ahaan markii inta banaanka loola soo baxo laga aamuso oo bulshadii ay noqoto mid sameynaya mid daawanaya iyo mid ka aamusan markaasi musiibada timaade xaq Ilaahay ka timaada way camimaysaa bulshada xadiidkii Qays ibn Abi Hazim أبو بكر الصديق باوحوا أخري آية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم مؤمنين تيو نفتي نهدات كاتان وحي اللي مدن كمالهدن إذن مرد بيو مربع هذا أضوه حنونت آية آخرين يسامبول وركز أوحوا يقولي إن الناس يضعون هذه الآية غير موضعها يضعون هذه الآية على غير موضعها ضدكو آية دا ميشة دي ميلان هم بيقلقيان وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وحن مغلي الرسول الله رهي إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أو قال المنكر فلم يغيروه عمهم الله بعقابه بالشدو منكر كي حمان تمركي أركته وبناك أصبح وأي وحكا قبا ويدو كهل ويدو إنكري ويدو عقوبة تماد إلهي وكسما وهذا قارسية منكرات كان فافصنة وحبا لقى قبانين laga aamusan yahay ee meel walba ee markii wuxuu nabad iyo barwaaqo la helo siyaadahay hada Soomaali marka uu fiiriso waagi colaadu ay jireen oo dhibaatooyinku jireen oo leesleynahay oo dhalinyaro muxuu ahaay habeenkii meelaha tumato oo xeebaha tago oo ma la arki jirin Soomaa nabadii baa qarimatay la kala carar wuxuu markii nabad la helo oo barwaaqo la helo منكرات كصباح منكرات كهدي لإنكري وايو مصيبة عامة كدلت وانا السنة إلهي واي عذرات دلن وحا إيمانا يا أبارو وحا إيمانا يا فتهادو وحا إيمانا يا حلاد وحا إيمانا يا دباتوين ووينو بلشدة وذا قارا إيمانا ما حيكو إيمانا يان
waxay ku imaanayaan munkaraadkan qaarna sameynayaan qaarna daawanayaan qaarna ka aamusan yihiin sidaas daraaddeed waa laga maarmaan in hawsha iyada iyo wixii la mid ah bulshadu ay tiraahdo maya war daaya war joojiya war inaga daaye waxaa ka mid ah waxyaalaha muxuu ahaayey ku jira dhaantada ku jira been iska cad baa ku jirta waxaan ay daldalhayaan dhalinyaradu rag iyo dumarba waa beentuna ilaahay dunuubta laga galay uga weynta weliba waa been يعني waxa weeye loo ekeysay sida runtoo kale looguna luuqeeyay qaab dadka soo jeedanaysa inay beenta waxaad ku garanaysaa ninkan laaqinaya sida orgigo kale muxuu ahaayay ku haya waan ku raadiyay intaasaan ku daba socday muxuu ahaayay wadnaha ibelbelay xalay ma seexanin sakaraad baan ahay isbitaal baa la dhigay adaan ku baadi goobahayay marumba يا مبرتيبا وبيناله وحي الله يجيرو كله حالينا مسيحان واين ودنا ما بلبلهيو غبدنا waxba kama rabo uma socdo waliga muusan arkin xataa guur kama rabo laakiin meesha waxay la gashay un hawsha la gashay Soomaaliyeed sidaas daraadeed gabay waa ka Ilaahay ku sheegay wa shu'araa'u yattabi'uhum al-ghaawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun وأنهم يقولون ما لا يفعلون شعر كوحل هذا هذا الكستو أو تحا أو طحن شعر بالينا هذا دونت أما نوع محو هاي قبي أقول لقيه أما هيس أقول لقيه أما برامبر أقول لقيه أما محو دانتا أقول لقيه هذه قصاد تقول لكن هذا الكستو أو منظم شعر بالنا ساس درات كل يوم يسوي ذا قالين الشعراء يتبعهم الغاوون ضدك أنت اللونسان بأورت الرعدة ضد بعدي يسون اللونسان بالرعدة ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون صماذا أركن تقول بين يكون رسينين ميلو البوغلية ميل كسوك الله وحك سوك الله وأنا وريرتين وأنهم يقولون ما لا يفعلون وحين السمين إنه يكون الله وحن أوليه وحبان كلا طورة هي وحبان سمين عركان كسو دقيا أوليه وبينال وحبان سمينك يعني وحينا سويني إنه ويكوها الله عليه تبارك وتعالى ابن عباس وحليه في كل لغو يخوضون مركا وحوي بينتن كذب كان يوحى للضلضلة هيو وهذا محوء هاي فحش القول ككتشرا وكبس يدرنو غزل كان عشق كان يوحى للضلضلة شهوات هذا نكي إن إنسان صامرني بينت إسوتاي أيضا وحي كميت هاي محرماتك شريعة خلاف سن كتشرا كميت قبدي waxyaalaha ku jira waxa kamida in iyaguna ay ka mashquulaan dadkana ay ka mashquuliyaan ilaahay ujeedadu u abuuray iyo waajibaadkii diinta daa'irtana ay lumiyaan ilaahayna quraanka kariimka waa kaynoo ugu sheegay wa min an-naasi man yashtari lahwa al-hadithi liyudilla an sabilillahi bighayri ilmin wayattakhidha huzwa ulaika lahum adabun muhin dadka waxa kamida qaar iibsada ama qaata waxyaalaha waqtiga la isku dhaafiyay maaweelada lagu sameeyo waxyaalaha maaweelada lagu sameeyo heesii baa soo galaya dhaantadii baa soo galaya waxyaalaha kale maaweelada oo dhan baa soo galaya waxaasay qaadanayaan iibsanayaan la wareegayaan maxay u sameynayaan liyudilla an sabilillah si ay jidka ilaahay dadka uga lumiyaan bighayri ilmi la'aan ويتخذه هزوا إلى آيات كيسنا تشيس بكردقنايا أولئك لهم عذاب أليم العذاب إهاني لي عبد الله بن عباس وحليه هي نزلت في الغناء وأشباهه آية وحي كسود كتي هي صح يوحي لمده ودانتدو كميت عبد الله بن عباس بعدها عبد الله بن مسعود وحليه هي آية وحي كهليس هو الغناء والذي لا إله إلا هو إلهي بان كدرتي آية وحي كسابسنتها وهي صح صدق قرب سيدا كدارنا يا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه سيداس دراديد ايا wax kasta oo ka mashquuliya ilaahay wixii uu ku abuuray cibaadada ka mashquuliya oo salaada ka mashquuliya oo barashada diinta ka mashquuliya waa lahwul hadith mararka qaar kood waxa soo galaya maharajaanaadka la isugu yimaado dhaantooyinka iyo heesaha iyo la isugu yimaado marmarka qaar kood waqtigii salaada soo galaya bulshada dhan ee meesha ku jirta qaacada ku jirta waxa laga yaabaa hal mid inuu salaad u bixin oo salaadii ku dhaafto
ها المهم waxaan hadda sheegnay waxa weeye waxay ka badan tahay 20 mukhalafo oo shariicada khilaafsan ayaa ku jira iyo ka badan maadaama intaas oo munkaraad iyo ka badan oo sheegin ay xambaarsan tahay munkaraadkaasi iyo kuwa ka waaweyn dad waxa jira u bareera ama arsaaqdu ka gashay ama shahwadu ay la jiidhay ama shaytaanku duufsaday ama naftu ay duufsatay wayna jiri jireen dad noocaas oo kala ayagana waxaan leenahay Allah soo hanuuniyo oo Ilaahay tabaaraka ta'ala munkaraadkan iyo xumaantan ay banaanka ula soo baxeen ummadana ku luminayaan Allah tabaaraka ta'ala ha ka hanuuniyo intii ku khaldantay oo dambi ku gashayna Soomaali badankeed waa ku gashay oo waa mid muxuu ahay daawanaya iyo mid muxuu ahay u bogsan iyo mid sameynaya iyo inta inkirsan ee diidan baaba yarba marka إلهينا تبارك وتعالى ذنوبتنا هو ضعفه وحمانته إلهي تبارك وتعالى هينجا إلاليو يجنا إلهي تبارك وتعالى توبته هو فتشيو إننا وحى إن لقد بون كبل شأها وحى إن لقد بون تاكل يمه منكرات كصوب حياة سما كتجتان كدت كسمين أي كتجان ومسألة بعضه مسألة كلنا وحوي إن وحن اللي أجاده إنه يوحل دنا وشرع هذا خلاف صنع دبعت له انت كفتنيسن ان بدن oo kamid waxa laga yaabaa in gadaal Ilaahay ka soo hanuuniyo dad faraha badan way dhacday in Ilaahay soo hanuuniyay laakiin waxani markii laga aamuso wuxuu noqonayaa munkar caado noqday oo la banaystay oo la xalaashaday buu noqonayaa waana markaas uu ka sii daran yahay marka tawfiiqda Allah ina waafajiyo Ilaahayna tabaaraka wa taala xumaanta Allah inaga ilaaliyo samaanta iyo iimaanka iyo khayrka iyo khaatimo wanaagsan Allah inagu dilo ummadda muslimka intii lunsan Allah soo hanuuniyo hada billahi tawfiiq sallallahu alayhi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam